السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan khiyaartada daawanaysa idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena aan idinkugu talagalay maanta oo axada taariikhduna ay tahay 17 bisha December sanadka 2023 barnaamijka waxaan idinkugu hayaa dhowr qodob oo muhiim ah Mareykanka oo la sheegayo inuu qorsheynayo weerar uu ku qaado xuutiyiinta iyadoo dhanka kalena cabsi laga qabo saameynta Iran ay ku yeelan karto gobolka haddii tallaabada Mareykanka uu qaado wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa wada qorshe maalmaha soo socda uu ku tagayo gobolka bariga dhexe si uu bal wada tashiyo ula sameeyo madaxda gobolkaasi si looga wada hadlo xuutiga tallaabada laga qaadayo Iran oo uga digtay Mareykanka iyo xulafadiisa in ay wax tallaabo ka qaadaan xuutiyiinta haddaba xaaladda oo faraha ka sii baxaysa ayaanu barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa kooxaha Kataibul Qassam iyo Sarayal Qudus ee dagaalka culus ka wada magaalada Gaza ayaa sheegay in maanta dagaaladii dhacay ay markaa ku burburiyeen taangiyo iyo qalab kale ay wateen ciidamada Israa'iil isla markaana askar ay dileen dhanka kale taliyihii hore ee ciidanka la yiraahdo Golani oo kamid ah guutooyinka dagaalka culus ka wada magaalada Gaza kana mid ah guutada Israa'iiliyiinta ay ku dhaartaan taliyahoodii hore ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay waxa la sheegaa wax ka jira ma jiraan askarta guutada la yiraahdo Golani afar marka loo qaybiyo hal dhig ayaa waxa ay ku maqan yihiin kuwa la dilay iyo kuwa la dhaawacay dagaalkii Gaza taas waxay ka dhigaysaa la leeyahay tirada wax aan aqligu ogolaan karin inta wax ku noqotay haddaba dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale oo muhiim ah oo barnaamijka aanu idinkugu hayno ayaan idiin soo gudbin doonaa Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena inagoo ay inoo soo socdaan qodobo muhiim ah oo aad uga heli doontaan haddaba waxaan ku bilaabaynaa magaalada Gaza qaar ka mid ah wasaaradda caafimaadka maamulka magaalada Gaza iyo dhaqaatiirta ka howlgasha cisbitaalka la yiraahdo Kamal Udwan oo dhawaan Israa'iiliyiinta ciidankoodu ay si xun ugu galeen dadkii bukaanka ahaa iyo dhaawacyadii ku jiray iyadoo waliba la sheegayo qaar iyagoo nool ay duugeen ayaa maanta waxa ay shir jaraa'id ku qabanayeen dibadda cisbitaalka gaar ahaan goobta ay markaa makiinadaha dhulka qoda ay ku baabi'iyeen dadkii dhaawaca ahaa oo halkaa ayay istaageen oo ay shir jaraa'id ku qabanayeen haddaba wariyayaashii ayaa goobjoog ahaa waxay ka sheekeeyeen dhibaatada Israa'iil ay ka geysatay Kamal Udwan cisbitaalka la leeyahay dadka ay dileen dadka ay halkaa iyagoo nool ku aaseen waxay sidoo kale sheegeen oday da ah oo ka mid ah dadkii cisbitaalka joogay in eeyahoodii ay markaa ay ka adeejiyeen oo odagii isagoo taagan jirkiisii marba cad la goostay haddaba waxaa soo dhibaataa marka iyagoo ka hadlaya oo u sheegaya caalamka oo leh halka waxa ka dhacay dambi weyn ka dhacay Israa'iil waxay geysatay dambiyo dagaal adduunku ha ogaado dadka maaragtay ka shaqeeya nabadda xornimada iyo wanaagga ka shaqeynaya ha ogaadeen dhibaatada Israa'iil ay cisbitaalkan ka geysatay haddaba shirkii jaraa'idoo marka socda oo ay hadlayaan ayaa mar qura ciidanka Israa'iil waxay ku soo fureen rasaas qaar ka mid ah askarta Israa'iil ayaa meelo fog waxay ka soo tooganayeen dadkii shirka jaraa'id qabanay dadkii waa kala carareen xabadaa lagu soo furay dadkii marka shirkii jaraa'id waa dhammaystireen ay dheh haddana waxay la soo wareegeen dhinaca kale ee cisbitaalka ayay shirkii jaraa'id ku dhammaystireen
adduunkana waa u sheegeen, waxay yidhaahdeen meeshaan mushkiladaa ka socota, meeshaan dhibaataa ka socota, israa'iil meydadkii way guranaysaa, waxay rabto way dilaysaa, cid la hadlaysa male, adduunyada sharci kama jiro, wax ka jiro male miya, war aaway dadkii dhahaya xuquuqda bini aadankaan u doodaynaa, aaway kuwii lahaa sharciyada iyo nidaamka adduunka la ilaalinaa, wixii oo dhan wax ka jira ma jiraanay dheheen. israa'iil halkan waxay rabtay ka samaysay. waa tahay marka qodobkaas wuxuu ahaa qodob aada u xiiso badan oo maanta looga hadlayay dhibaatada israa'iil ay ka geysatay gaza, gaar ahaan halkaas. waxaa kaloo aan idiin hayaa maanta sheeko aada cajiib u ah. xuutiyiintii iyo sheekadoodii dambe way noo soo socotaa, iyo maraykan oo waa weeraraa leh, iyo iiraan oo hanjabaysa, wixii oo dhan waa noo soo socdaan. laakiin shalay waxaan idiin sheegay in war ay soo baxeen sheegaya in cumaan ay ka shaqaynayso in xuuti uu joojiyo hawshan, israa'iilna ay fasaxdo gargaarka si loo gaarsiiyo gaza. maalmahan oo dhan gargaar lama geynayn meesha, gaari yar wax gargaara oo nafloo la geynaa male. israa'iil marka waxay rabtaa inay bal ku bedelato in dekadaheedii ay u furmaan oo xuutiga culayska ka yareeyo. marka maanta waxay fasaxeenaa layidhi 60 gaari oo gargaar wada. haddee 60 gaari maxay ka qabanaysaa magaalo dadkeedu gaajaysan yihiin, la go-doomiyey, wax la cuna la haysanin, xilli roobaad ay tahay, qabow magaalada ay tahay, dadku waa yaaban yihiin, dadku xornimo uma socon karaan, duqeynaa meel walba socota, nin walba meeshii uu ku dhuuntay oo ku jiraa, caruurta wixii fakaday meeshaasaa lagu hayaa, wixii kala dee madfacaa la tegay, dad noloshaas ku nool waayo. dadkii markii ay maqleen marka gargaaraa soo galay baa nin kastoo dhalinyaro ah, caruurtii dhalinyarada ahayd, wixii oo dhan baabuurtii gargaarkaa lagu cararay. aidintusoo sawir aan ka sameeyey, video aan kasoo qaaday warbaahinta saakay markii ay galayeen gaadiidka gurmadka waday raashinka iyo gurmadka iyo waxa kan alaabtu saarnayd, intuusan maqaasiinada gaarin ayaa sida idin muuqata waa la dhamaysanayaa, korkiisa inta la fuulo baabuurkii xamuulka ah wixii oo dhan lagala degaa. dadkii nafa haysa, gaaja haysa, waxay cunaan ma haystaan, adduunkii oo dhan indhuhu qabsaday. wadamadii carabta iyo kuwii islaamka ee dhowaan sacuudiga ku shiray waxay lahaayeen waa jebinaynaa cunaqabataynta, waxbaan geynaynaa. waxay kusoo aruureen madaxdooda wasiiradii arrimaha dibadda inay marba maraykan tagaan, mar ruush tagaan, mar china tagaan, war hawshaan hala qabto, waxaasay kusoo aruureen. dadkii dee marka yaa u gurbanaya, allah subxaanahu watacaala ay leeyihin. marka dhibaatadaas halkaa ka jirta. marka waa arkaysaan laguma baranaa la leeyahay falastiin mushkilad iyo beliliqo iyo dhibaato. wuxuuna beliliqada ma aha, waa gurmad dadka loo keena, dadkiina waa gaajaysan yihiin, iyagiyaan sugi karinba inta maqaasiin la geeyo dadka loo qaybiyo ma sugi karaan. baabuurka korkiisa 60kii baabuur meeshaa lagu deertay, waa lagu kala tegay. marka xaaladdu marka waa dareemi kartaa halista ay marayso iyo meesha ay ku socoto. waayahay marka iyaduna sheekadaas halkaasaan kaga gudbaynaa. arrinta xuutiga iyo howlihiisii waa kusoo gabagabayn doonaa, barnaamijka uu noo soo socdaa, sheeko yaablaa soo socota. markan waxaan galayaa warbaahinta israa'iil ayaa waxay qorayeen shalay ilaa maanta sheeko ku saabsan in taliyaha hay-adda sirdoonka israa'iil ee Mossad in loo diiday qatar inuu tago. macnaha maalin hore waxaan idiin sheegay Netanyahu inuu u ogolaaday, uu yiri wada hadal waa samayn kartaa, waa fasaxan tahay arrinta ku saabsan maxaabiista, isagoo la kaashanaya madaxa CIA-da Mareykanka. laakiin niman marka waxaa ku jira dowladda Netanyahu wadaada yahuudeed ah oo maaragtay oo mayal adag. waxay yidhaahdeen qatar maba la tagaayo. oo qatar maxay hadlaysa? qatar waxay martigelisay nimanka xamaas. annaga xamaas inaan la hadalno ma rabno. marka annaga yaa rabnaa inaan la hadalno. annaga qatar maa naga haysata dad, xamaasaa dagaal nagala dhexeeya, wax naga haystaan.
xamaas waxay joogaan madaxdeeda iyo ninkii ugu sarreeyay siyaasadda dooxay degan qatar waa inaad tagna maya qatar ma tegi kartid haye wada hadallada xaggee u tagaa uu yiri marka golihii marka waxaa la shirayaa ninka oo maaragtay muusaadka sirdoonka Israa'iil wuxuu la fadhiyaa guddida golaha wasiirada iyo saraakiisha ee dagaalka qaabilsan ee Israa'iil markaas waxay leeyihiin ma aadi kartid qatar meel kale war meel kale xaggee aada maya wada hadalka ma rabtiin horta adig in dadka la soo daayay ma rabtiin hadda mushkilada taagan waxay yiraahdeen dadkii mudaharaada ay hor dhoobnaa wasaaradda difaaca Israa'iil waxay yiraahdeen dhowr maalmood halka ma ka tagayno 24 hours waa mudaharaadena sababtoo ah 3 qof la dilay oo maaragtay askar ahaa oo xamaas haysatay oo waa soo baxsadeen la yiri ayaa askarteenu toogad marka waxba meesha waxba ma ku haysaan dadkii idinka leeynay marka joojiya dagaalka wada hadal gala dadkii noo soo daayay leeyin dadka mudaharaad marka cadaadis barashar gudaha ayaa ku socda moogtay marka waxay rabaan wada hadalkina inay galaan inayna wali isla weyni muujiyaan oo qadar ma u tagayno anaga qadar war qadar hada marka maxaa sameynaa markii dambe ra'iisul wasaarihii Netanyahu soo dhaxgalay wuxuu ku yiri Yurub kula kulan nimanka qadariyiinta ah qadar inta u yeeratid Yurub isku ark meesha wada hadalka ka wada oo qadar ma tagay ma tagays marka sheekada cajiibka marka yaa mar walba waxba soo baxaya hadda ay tuso kanaalka la yiraahdo 13 ee Israa'iil ay leedahay ayaa sheekadan qoray wuxuu leeyahay qadar waa laga bedelay ninka madaxda ka ah hay'adda Muusaad waxa uu wada hadallo la yeeshay Yurub ayuu kula yeeshay wada hadal qadariyiinta wafdi ka socda haddaba cadaadis ayaa la saaray leeyahay ninkan sida kanaalka 13 uu ku warinayo waxay ka mamnuuceen golaha wasiirada ee Israa'iil iyagu dagaalka qaabilsan in uu ninkani u safro qadar waxay leeyihiin ra'iisul wasaaraha ayaa soo dhaxgalay arinta wuxuuna u ogolaaday inuu Yurub kula kulmo oo uu arinta kala hadlo sidii loo sii deyn lahaa dadka wali xabsiyada ku jira gaar ahaan dadka da'da ah dumarka la rumaysan yahay wali inay gacanta ku hayaan arimahaas in maaragtay marka hore wada hadalka laga galo oo la sii daayo waya warar qaar marka waxay sheegayaan in wasiirka arrimaha dibadda Qatar iyo ninkan ay Yurub ku kulmeen Yurub leeyahay wadanka Yurub ay isku arkayaan wax sheega male waxa leeyahay waxa la isku arkay Yurub marka qaar marka dadka waxa taxliiliya waxay laftirkooda durayaan qadariyiinta waxay leeyihiin qadar hadii la yiri ma idin imaanayno iyagu maxay ka doonayaan marka murna socda meesh ku saabsan qadar in maaragtay ay baxdo ay Yurub tagto oo nimankan Israa'iiliyiinta meesha kula kulmaan si wada hadalkii loo galo maxaa laga sameynaa dadka qaar marka qadar way dhaliilayaan dadka qaarna qadar way difaacayaan qadar waxay leeyihiin qadar waxay meel walba oo xal lagu keeni karo oo dadkan Falastiiniyiinta dhibka looga joojin karo oo maalin walba dhibaatada lagu hayo dilkan iyo dhibkan looga joojin karo inay aado waa sax tabar kale lama hayo marka hadiiba wada hadal ay nimankan ogol yihiin wada hadal laakiin Xamaas shuruudaheedii ayaa laga soo bixi karin Xamaas waxay tiri dagaal dambe waa joogsana hadiiba xabad joojin la aado xabad joojin laalaab iyo mid oo la isku soo noqonay ma jirto xabadda toosa loo joojinaa waa la kala tagaa ama xabad joojin ma jirto waa isku dhamaanayna wayna leynayaan ama waa leynayna maxaabiis dambo laga hadlaa male ilaa kuwa aan hayno aan sii deeno iyagana waxay naga hayaan oo dhan ay soo daayaan marka meeshaasay bahashu aad uga adag tahay hadda marka waxaa leeyahay qadariyiintii way kulmeen iyo ninkii Muusaad wadan Yurub ah ay ku kulmeen marka sheekadaas iyaduna halka ayaynu kaga gudbaynaa warar kale oo goordhow ay soo saareen kooxaha ka dagaalamaya magaalada Gaza ee Falastiiniyiinta ayaan galayaa kooxda Kataa'ibul Qassam ee Xamaas waxay sheegtay inay weeraro ku qaaday dhinaca madaafiicda ah deegaanka la yiraahdo Neirim iyagoo ku weeraray gantaalaha ridada gaaban
kuwaas oo ay kasoo rideen gaza. halkanna waa goobaha dadka yahuudda xoogga lagu soo dejiyey ee ku hareereysan magaalada gaza hareeraheeda ku yaala. waxay sidoo kale sheegeen inay weeraro kale oo toosa ay la galeen ciidanka israa'iil, islamarkaana ay markaa ka dileen askar ka tirsan israa'iiliyiinta saacadihii lasoo dhaafay. dhanka kale war-saxaafadeed ayay iyaguna soo saareen kooxda la yidhaahdo saraaya alqudus ee garabka militariga ee jihaadul islaami ee reer falastiin. waxay yidhaahdeen waxaan burburinay aaliyaad. waxay sheegeen in markaa ciidanka israa'iilna dagaal toosa ay kula galeen xaafadda la yidhaahdo asheekh ridwan. waxay yidhaahdeen marka saraaya alqudus waxaynu ka gubnay 3 aaliyadood oo taangi iyo baabuur gaashaaman isugu jira. waxay sidoo kale sheegeen ciidankooda in iska horimaad toosa ay la galeen 7 askari oo lugeynayay oo israa'iiliyiina ayaynu meel uga soo baxnay yidhaahdeen. waxaanu ka dhignay kuwo dhintay iyo kuwo dhaawacmay ayaan ka dhignay. waayahay halkaas marka iyaduna waa war-saxaafadeedyo hadda ay soo saareen kooxaha falastiiniyiinta oo markaa ku saabsan arrinta dagaalka halka uu marayo. sheeko marka la yaab lahaa jirta hadda. guutada aadka uga dagaalamaysa gaza golani la yidhahdaa. golani guuto maaha adiga waxaa la dadka militariga waxay yidhahdaan gaaska wuxuu ka kooban yahay dhowr guuto ka kooban yahay sida militarigu ay sheegeen. marka waa gaas weyn waa ciidana oo la yidhahda golanigu marka waa ciidamada dhulka ay ku dhaartaan israa'iiliyiinta. ciidan infantry oo khatara ayaan leenahay leeyihiin. waa kuwa dhabarka ku sita maaragtay 50 kiilo oo soconaya. kuwaasa waxaa la yidhahdaa golani la yidhahdaa. golanigaas marka waaba askarta ay ku dhaartaan israa'iiliyiinta. kuwa nagta lagu hayo maalin walba lasoo leynayo iyaga taangiyadooda waaba kuwii ugu dambeeyay. macnaha wax kale oo meel ugu jira ma jiraan. way la soo baxeen ciidankoodii khatarta ale. marka golani la yidhahdaa. golani marka ninaa taliya ka ahaan jiray kan hadda jooga ka hor. marka odayuu noqday howlgaba. golani la yidhahdaa. ninka oo maaragtay ciidankaas madaxda ka ahaan jiray. ninkiia marka warbaahinta israa'iil ayaa wareysatay. waxaa la yidhi maadaama adiga ciidankaagii ay yihiin kuwa ka dagaalamaa gaza war naga siiyaa la yidhi. macdaa ciidankaagii waxaa loola jeedaa adaa xukumi jiray muddo. marka waa ka war haysaa oo waa ogtahay xogtoodii. ninkii marka war la yaab lahu sheegay ilaa hadda waa fajicisay ku noqotay adduunkii kale iyo israa'iiliyiintaba. wuxuu leeyahay ninkan marka aljazeera warbixin ka qorta waxay tiri taliyihii hore ee ciidanka golani ayaa hadlay. wuxuu sheegay in laga soo bilaabo 7 Oktoobar ilaa hadda la joogo ciidanka golani ay markaa noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa dhaawacmay rubuc ka mid ah. rubuc waxaa la yidhahdaa kiilowga 4 loo qaybiyaa. 4 rubuc waaye kiilada. marka rubuc uu ka cabiray. wuxuu yidhi marka golani rubuc ka mid ah waxay noqdeen wax dhintay iyo wax dhaawacmay. taasaa marka shock ay noqon. waana nin dee beenaa sheegay lama dhihi karo. genaraal sare oo ciidankan hadda la laayay u damqanaa iska dhiga isaga. macnaha wuu u damqanayaaba. wuxuu leeyahay ciidankaygii rubucaa maqan uu leeyahay. waxa la sheegaa been waayu leeyahay. nimanka hadda jooga waxa ay dadka u sheegayaan 2 dhimatay 5 dhimatay 20 dhimatay wax ka jira maluu leeyahay. markaasaa dadkii yaabeen oo taliye makaa runaa oo run waayu leeyahay. xogta aniga aan hayo ciidanka dhexdiisa rubuc way maqantooyin. marka ciidanku markuu yahay marka 20,000 ama 30,000 yahay rubuc hadday maqan tahay ama 40,000 ka soo qabo rubucaa maqan 10,000 ku dayso waayo. 10,000 oo askari wax dhintay wax dhaawacmay waayu leeyahay. marka xaaladdu marka halkaas iyaduna ay ku biyo shubatay. maalin walba marka sir baa soo baxaysa. waxbaa ka shifmaaya. nimanka kan maalin walba wax nagta ku haya waxa ay dilayaan caag ma ah. bini aadam waa bini aadamkii marka sida loo qarinaa maalin walba way soo bixi doontaa. maalin Abu Ubayda wuxuu yiri say mar walba u qarinayaan waxa aan leeyahay maalin iyaga sheegi doono. hadda tiistiya bilaabatay. waa kaas wadadii lagu socdaa. waayahay qodobka ugu dambeeya marka galaya xaaladda marka badda cas way sii kordhaysaa. xaaladeedu way sii xumaanaysaa.
shirkado waaweyn Hong Kong, Faransiiska, Denmark wixii oo dhan waxay yiraahdeen annaga waa joojinay ilaa arinta ay dhinac u dhacayso maraakiibta shirkadahaasu leeyihiin inay isticmaalaan baddaas. wixii oo dhan waa joogsadeen. sababtay u joogsadeen xuutiga ayaa joojiyay. laakiin ogaada cadaadisa waxaa la saaraa wadamadan carabta laftirkooda. shirkadaha marka hore xuutiga wuxuu yiri wixii Israa'iil u socda iyo wixii Israa'iil ka yimaada la diriirsana aniga iyo wixii Israa'iil ay leedahay intiina kale waa socon kartaan, shaqadiina waa qabsan kartaan. marka kuwii xataa Israa'iil aana u socon oo meesha mari lahaa ayaa waxay leeyihiin ma shaqaynayno. waana shirkadaha ugu waaweyn xamuulka qaada ugu wadamada carabta iyo waxa dhan iyo meeshaas iyo taga. saameynta ugu weyn marka maxay durbaba ku yeelatay Masar ay ku yeelatay. Masar maxay ugu yeelatay kanaalka Suez ayaa maraakiib badan ka gudbi jirtay. inta baabul mandab soo maraan toosaan Masar kanaalkeeda ka gudbaan ayay Yurub saas u aadi jireen. marka haddii marka baabul mandabkii wadadii aan la marayn Masar ya cashuur ka qaaday marka cashuur ay qaadan jirtay ayada maraakiibtan way ka daldalan jirtay. hadda Masar kanaal Suez waa shiidaa leeyahay maalmahan wax soo maraa male wixii oo dhan shirkadaha marka way ku xumeynayaan. waxay rabaan carabta laftirkooda in barashar la saaro si ay xuutigan dagaalkiisa uga soo qayb galaan ama xalkiisa u keenaan. adinka laftirkiina oo idin saameeyay marka shirkadihii marka waxay leeyihiin markay bayaan soo saaraanba waa joojinay maridda badda cas marka adi haddaa Israa'iil u socotida lagu diida ama ka imaatide haddaad meel kale u socoto Masar u socoto Sacuudi u socoto meelaha u socoto yaa ku raba maya iyaguna maartay xujo kale sameynayaan. marka halkaas marka waxaa ka jira dhibaato xun ka soo socota la leeyahay. waa taay aan galo marka warbixinadii ugu dambeeyay sheekadan laga qoray. wakaalada wararka ee Ruushka la yiraahdo Sputnik ayaa waxay leedahay Mareykanku waxa uu darsayaa hadda ka shaqeynaya inuu garaaco bartilmaameedyo ay leedahay Ansaarullah waa kooxda Xuutiyiinta si toos ah inuu u garaaco. marka warbixinta marka Mareykanka way sii socotay waxa la leeyahay wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka shaqeynaysa oo daraasad ku sameynaysa sidii loo garaaci lahaa bartilmaameedyo ay leeyihiin kooxda Xuutiyiinta waddanka Yemen si toos ah waliba in loo garaaco. waxaana la sheegayaa arintan inay ka dhalatay kadib markii kooxda Xuutiyiinta ay weerar ku qaadeen maartay maraakiibtii maraysay badda cas iyagoo markaa hor istaagay sida ay leeyihiin Mareykanka hawlihii ganacsiga ee badda cas ka soconayay. haddaba Mareykanka mas'uuliyiin ka tirsan ayaa waxay sheegayaan maamulka Biden inay dareemayaan dhanka kale walaac sii kordhaya oo ku saabsan Ansaarullah iyo cidda gadaal ka taagan oo ah Tahraan ama Iiraan. haddii Ansaarullah la taabto halkaas marka waxay ka baqayaan in Iiraan iyaduna ay si toos ah ay dagaalka u soo gasho. marka waa laga fakarayaa marka Mareykanku marka ma rabo in hawshan sii socoto. wuu duqayn karaa mar walba awood wuu ka awood badan yahay Xuutiyiinta inta maraakiib u qaato gantaalo wuu ku ridi karaa diyaarado wuu ku duqayn karaa. laakiin cidda mushkiladda ah xuutiga kaliya ma wax badan ay haysaa awlaad badan ay leedahay Iiraan. haddii curudka laga duqeeyo iyadana way xanaaqaysaa kuwii kale oo awal wax turtuuriyees ku jirayna toos ay dagaalka u galayaan. waxaa ka mid ah Xisbullah oo waxaa la arkayaa gantaalo inta ridaan iyagana markooda Talaabiib duqeynaya. hadda Xamaas oo iska yar oo maartay awlaada yaryarka ayaa Talaabiib laga hoyan laayay. marka Xisbullah 10 jibaari ka awood badan tahay liir Xamaas ogaada. marka Xisbullah iyo wixii oo dhan isla kacay. marka waxa leeyahay marka maalmaha soo socda wasiirka gaashaandhigga Mareykanka ayaa soo baxaya wuxuu imaanayaa mandiqada bariga dhexe. nimankan carabta iyo waxa kan iyo meesha joogo la shiraya. wuxuu leeyahay maxaan ka yeelnaa adinkiina waa kan shirkadii waa idinka joogsadeen wixii oo dhan Israa'iil kaliya ma shirkadii markii la weeraray maraakiibtoodii way joojiyeen adinkiina dhibaato idinku dhacaysa maxaan qabanaa nimankan xoog ma u sheeganaa ma yeelnaa waxaas adiga la tashiyo iyo arrimahaas u imaanaa leh. laakiin Mareykanku niyadda waxa uga jirta inuu duqeeyo Xuuti haddana
gadaal waxaa laga baqayaa gobolkii oo dhan inuu isla holco oo Iiraan iyo waxa dhan ay isla gubtaan oo meeshii ay noqoto marka jaantaar rogan qof walba meeshuu rabo uu wax ku rido taas hadday dhacdana waxaa leeyahay waxyaabo badana marka gobolka khatar ka galaya daniha uu ku leeyahay Mareykanka marka arrintaana aad buu uga lug jiidayaa xuutigiina waa ka soo daray haddaba marka xaal halkaasuu marayaa wixii warar soo kordha barnaamijyadeeda dambe ayaan idinkula socodsiinayaa haddii Allah awood leh ka raali noqdo aad baa ugu mahadsantihiin sida aad mar walba barnaamijyadeeda ugu xiran tihiin oo aad fariimaha uga qayb qaadataan fakarkiina iyo aragtidiinana aad usoo qortaan inta mar walba barnaamijka like gareysa oo share gareysana aad bay u mahadsan yihiin inta kalena waxaan ka rajeynaynaa inay iyaguna sidaa sameeyaan haddaad ku cusub tahay youtube-ka subscribe saar haddaad ku cusub tahay facebook-ana follow garey si mar walba barnaamijyadeena aan soo gelino ay kugu soo dhacaan oo aad u hesho saacadaha soo socda iyo barnaamijkayga kale ayaan idiin diyaarin doonaa haddii Allah awood leh ka raali noqdo inta aan ka gaarayno sidaa iyo nabadgelyo